subax wanaagsan wacan. maanta halkan waxaan igu hayaa rear diffy, magacii koowaad, magacii labaad differential loogu wacaa, magacii saddexaad rear end, magacii afraad gear pinion, bearings, waa big semi truck oo air brake ah, waa taraagyada waaweynka, waxaa laga soo bixiya geedkan giant-ka ah. rear diffy aan ugu waco or differential, waa arkaysiin dhaawacyada uu gaaray afafka teethka or afkiisii, we call teeth these or af or gear ratio wiisi, waa meesha birta wado iyo birta wareegsanayso isla wado waaye. madaxaas waan ii tusi doonaa, waa 6.5 waay, I'm sorry, waxa waaye 5.63 gear ratio waaye. waa very big giant heavy, boolkiisa hataa meesha u dhan yaa arkaysaa, the housingkiisa gudaha waa arkosiin, aad u jajabay. and this is what exactly happened. the housing meeshaan kasoo fura waa kaas gudaha, bearingka meesha ku dhadhex jabay waa arkaysiin, wasaqiisii nastiga. hal xabo haddaan soo bixiyo aan ii tuso, si meesha xooga waa cariiri. nasty bearing. here is the bearing, geedahan needle bearing, ball bearing, rod bearing, side bearing lagu wacayaa. so kuwaana jajabay, waxa koos gareeyana waxa waaye oilkoo la flash gareynaynin iyo clearance, maxaa lahaa gaab u dhexeeya loose ah oo clearancegiisii retorque lagu sameynin, aan la dhuujinin, inspection lagu sameynin, bearing hadduu xumaado, ball bearing iyo needle bearing ay ku jiraan meesha. haddii beerinada xumaaday in la bedelo bearing cusub la geliyo si loo safe gareeyo maxaa lahaa madaxan weyn, gear, the pinion gear and the housing. so this is the whole gear, the diffy. let me turn it. arkaysiin dhinaca kale, markaan u qaaday xagga godkii oo shaftiga galayay, the axle key, how many teeth has the axle ratios. waa bearingkan ii sheegaya, waa ka bearingkan waaye. madaxan madaxa saan naqdo, it's about done. so housingkii waa kana. geedan maxaa waa haddaa rabtiin inaa ogaatiin, that's air brake chamber loogu wacaa. geedan weyn, madaxa weyn, brake chamber waxay qabataa, waa kana caliperkii oo kale, hydraulic waxay leeyihin caliper, bareegay qabataa. bareegyada inta ku jiro waa shoes waaye, so samten labada dhinac uu leeyahay. so gediyo geedan, hopefully korka inay ugu soo dhicin way culus tahay. so this is the drive shaft meesha ku xirmo waaye dhinacan. so dhinacan bearingkii gudaha ku jiro, the whole pinion gearing, the whole housing. so that's maanta waxaan ii hayo oo video ah. ideally you guys learn haddaa rabtiin inaa wax ka baratiin, gudihiisina xoogaa yaraan ii sharxo. as you guys can see it, the whole housing rebuildable oilkan, dib ayaa loo soo habeynayaa, waa la bixinayaa, meelahana waa lasoo axlamayaa. axlam markii lagu soo qabto waa lasoo kalin gareynaa, lasoo soofeynaya, ilkaha loo soo sameynayaa. geedii afka galaysana waa lasoo qaadayaa, iyadana saas oo kale mid cusub ama mideedii la habeynayaa.
meeshan bearing ay ku jirtaa labada dhinac labada bearing laga soo bedelayaa so hal mar kale inaan gidiyo dhinaca kale niituso already meesha axle-ka galaa niitusay housing gudihiisii labada dhinac bearing ku jira bearingada la bedelaa alright that's all about hopefully now wax ka baratid wax ka ogaatid and I don't know inaan ii sheegay in kale muxuu sameeyaa geedkan okay geedkan wuxuu sameeyaa labada taayirada waaweyn arkayso baskan gadaa maxaa la tragan gadaal oo ka soconaya so hadduu track gadaal ka socdo that means gadaal wuxuu wadayaa labadan lugo waa labadii lugo wax ka soconaya so drive shiftiga oo meeshaas galo madaxaas drive shiftiga ka bacdi transmissionka soo wareejiyo transmission drive shiftiga markuu wareegsado drive shiftiga diffygu wareejiya diffygan markuu wareejiyo labada axle wareejiya labada axle-na lugahay wareejiyaan lugaha markuu wareejiyo dan gaariga uu soconaya so hopefully haddii more question qabtid soo wici kartaa more explanation khayr ayaan ku rajaynaa